bulshaweynta Soomaaliyeed ee kasoo qayb gashay xafladan bahda fanka iyo suugaanta oo runtii ha noqoto gobolkii ha noqoto Shangaani ha noqoto Boondheere ha noqoto fanaaniinta dhalinyarada runtii halkan nagu madadaaliyay dhammaantiinba. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. mudan ra'iisul wasaare oo ujeeda caawa xafladan ujeedadeedu waxay ahayd in 12 bilood xilkii maamulka gobolka oo madaxweynaha jamhuuriyadda u dhiibay inaan bulshada la wadaagno wixii u qabsoomay caqabadaha jira iyo qorshayaashan ay higsanayno tan oo qayb ka ah maamul wanaagga isla xisaabtanka iyo daahfurnaanta. runtii muddo yar 12 bilood aad garan kartaan caasimadda muqdisho aad garan kartaan haddana waxaan aad iyo aad rabaa inaan halkan uga mahad celiyo dhammaan shaqaalaha dowladda hoose xamar iyo maamulka gobolka banaadir, dhammaan maamulada degmooyinka iyo howlwadeennada ka howlgala iyo bulshaweynta Soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimadda oo runtii noo suurageliyey inaad howlahaas aan qabanay aan soo bandhigno. sidoo kale waxaa kaloo iyadana ahmiyad gaara leh in magaaladan muqdisho bersamaadka sidii ahaan jirtay iyo maanta oo la garanayo in haddana annaga aan diiradda saarnay oon doonayno in caasimadda sidii bersamaadkii ahaan jirtay kusoo noqoto caasimadaha adduunka ugu wanaagsan, ugu amniga fiican, ugu nadaafadda fiican, ugu quruxda badan. mar baa la oran jiray Africa Rivera oo dalxiisayaasha adduunku ay halkan imaan jireen si haddaba caasimaddii u soo noqoto sidii bersamaadkii annagoo og inay 500 kun oo barakacayaal Soomaaliyeed joogaan, annagoo og dhalinyaradeenna in shaqo abuurku ku yar yahay oo 50 jaamacadood sanad walba ay soo saaraan jaamiciyiin haddana aan fursad shaqo haysanin, annagoo og in gobolka ama caasimaddu kaabayaasheedii ha noqoto wadooyinkii ha noqoto bulaacadihii biyo mareennadii dhammaanba ay runtii xaalad aad u adag ku jiraan. haddana waxaan u istaagna waxay tahay u samaysan qorshayaal inaan caqabadahaas oo dhan ku bedelno fursado. mudan ra'iisul wasaare muddo 12 bilooda oo aan 6 wado laami ah aan ku hirgelinay, wadadii 30 ku dhamaystirnay, wadada dabka oo aad arkayseen ilaa iyo Bakaaraha, wadada Liido, wadada madaxtooyada ilaa iyo isgoyska Xamar Jajab, wadada dekada ilaa iyo Via Roma, wadada Jasiira. intaas waxay ku hirgaleen waxay tahay iyadoo aan fahamsanayn ahmiyadda ay leeyihiin wadooyinkaas. sidoo kale wadooyinkii kale oo jaayga ayagana la soo bandhigay 27 wado oo laga hirgeliyay Kaxda, ilaa 4 laga hirgeliyay Daaniile iyo Heliwaa, ayagana ilaa 6 wadooyin laga hirgeliyay. arrimahaas oo dhan waxay ku yimaadeen waxay tahay bulshada iyo maamulka oo runtii isku duubmay isla markaana u istaagay. intaas waxaa sii dheeraa qurxinta taalooyinkii aad aragteen iyo barwareegyadii nalayntii oo ayagana aan juhdi badan gelinay oo runtii aad arkaysaan maanta nalalkii sidii loo dayactiray loo hagaajiyey. intaas waxaa dheeraa ahmiyadda ay leedahay gurmadka degdega oo runtii 2 xarun oo gurmad degdega markii ugu horreysay laga hirgeliyey caasimadda, midna degmada Hodan midna degmada Wadajir. horumarkaas isaga ah ma hirgaleen haddii aanan dhammaan shaqaalaha iyo maamulka iyo shacabkaba isgarab gelin. intaas waxaa sii dheeraa shaybaarkii tayada ee qalabka dhismaha iyo biyaha isagana aan hirgelinay. waxaa kaloo intaas dheeraa horumarka isboortiga iyo isdhexgalka bulshada iyo dhalinyarada oo magaaladan laga qabtay aad arkayseen, ha noqoto mini marathonkii iyo cayaarihii degmooyinka iyo kuwii kubadda kolayga iyo cayaaraha habeen la qabtaba. intaas ujeedada ahayd in la dhiirigeliyo isboortiga, la hormariyo dhalinyarada. xarumaha degmooyinkii ayagana aan dhisnay oo ka mid ahayd Wadajir, Yaaqshiid oo socoto iyo kawaanada la casri ah oo ayagana lagu soo kordhiyey. waxbarashadii oo ra'iisul wasaare aad aragtay 6 iskuul oo 12 kun arday ay ka faa'iideeyaan oo maamulka uu gacanta ku hayo. arrimahaas oo dhan oo wadadii nadaafadda oo aad adiga iyo ra'iisul wasaaraha madaxweynahaba nagala qayb qaadateen. sidoo kale barnaamijka Saxilqaan oo kaalin muhiim ah gobolka uu ka qaadanayo, ujeedaduna ay tahay in barnaamijkii madaxweynaha oo in caasimaddu ay hormuud ka noqoto. taasna waa mid aan aad iyo aad u hirgelinay. arrimaha bulaacadda iyo biyo mareenka mudan ra'iisul wasaare waxaan sameynay daraasad dhammaystiran oo loo yaqaano drainage master plan
oo aan rajaynayna dhawaana inay bilaaban doonto qorshaheeda oo bangiga adduunka iyo hay-ado kalena aan la kaashanayno. ujeeddaduna tahay in caasimadan biyo xireenadeedoo dhan la hagaajiyo, bulaacadihii oo haddaba aan sii bilownay bulaacaddii xamarweyne iyo xamar jajab oo hadda iyo biyo mareenadiiba ay si wanaagsan u shaqaynayaan. intaas waxaa sii dheeraa kaalinta wacyigelinta bulshada oo aad arkaysay muddo 12 bilooda oo degmooyinkii iyo shacabkii iyo waaxyihii ay runtii aad isu dhexgalayeen, aad u wada shaqaysanayeen, isla markaana barnaamijkii darisaynta aan hergelinay uu keenay hay-adihii amniga iyo maamulkii gobolka iyo shacabkaba ay muddo 12 bilooda si istaraatiiji u wada shaqaynayeen, taasoo suurtagelisay ramadaankii aan soo dhaafnay waxaa ramadaankii ugu horreeyay muddo 10 sano ah si nabada dadku ku afureen, ku cibaadaysteen, isla markaana aan bulshadii afur wadareed la qaadanaynay. arrimahaas oo dhan waxay ku yimaadeen waxay tahay runtii dadaalka shaqaalaha dowladda hoose iyo gobolka banaadir. intaas waxaa dheeraa cadaaladii aan u aragnay inay ahmiyad gaar leedahay oo dadka guryaha aad aan ugu istaagnay, isla markaana aan dad badan guryahoodii xaqi u lahaayeen loo soo celiyey sida aad documentary ku aragteen. intaas waxaa dheer guddiga khilaafka oo iyagana dib u habeen ku samaynay. ujeeddadeenana ay tahay in ummaddu cadaalad baa deeqda, cadaalad la helo. intaas waxaa dheeraa daadejinta maamulka oo aan 12 degmo mudane ra-iisul wasaare geynay xafiisyadii adeegyada lagu fulinayay. maantana adeegyadaas ay si xoole uga socdaan, isla markaana keentay inaan kobci dhaqaalihiina hirgelino, maamulkii iyo maaliyaddana la hagaajiyo oo ad aragteen 52.94 in la kordhiyo, taasoo ku timid iyadoo musuqmaasuqiina la yareeyey, isla markaana laisla xisaabtamay, adeegyadana laga dhigay kuwo casri ah oo qofka canshuurta bixinaya ilaa iyo akaankii bangiga dhexe aan waxba u dhexaynin. intaas waxaa dheeraa shaqadii shaqaalaha aan u aragnay halbowle oo aan ayagana diiwaan gelinay, hagaajinay, isla markaana aan maanta haysanno shaqaale tiro kooban la og yahay, isla markaana lala xisaabtami karo. waaxda caafimaadka ood aragteen fayadhoorka iyo howlaha wanaagsan ee ka socdo runtii iyagana waa kuwo ku yimid dadaalka waaxdaasi shaqaalaheeda oo runtii hormuud u ahayd gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada basmo. intaas waxaa dheeraa xiriirka dadweynaha aan u arkayna inay ahmiyad gaara leedahay. mudan ra-iisul wasaare nambarka 992 loo hirgeliyna ay tahay in bulshadu wixii cabashooyinkooda kusoo gudbiso tiim muxuu tababarana ay halkaas noo joogaan. tanoo suuragelisay haweeney soomaaliyeed fariin qoraal ay noo soo dirtay inay gurigeeda dib u heshay muddo 5 cisho gudaheeda markii fariin qoraalka ay soo dirtay iyo markii furaheeda lagu wareejiyey. intaas waxaa dheeraa barnaamijkii samafalka oo taakulo bishii barkaysan ramadaan iyo sida aan ugu istaagnay barakacyaasha oon u aragnay ahmiyad gaara, u dejinay siyaasaddii, lana sameeyey xafiiska oo durable solution unit loo yaqaano oo u istaagi doona arrimaha barakacyaasha. buuggii oo aan soo bandhignay dhowaanna haddana maalinta khamiista aan iclaamin doono xafiiskaas isaga ah oo durable solution unitka ah. intaas ka sokow dhalinyarada shaqa abuurka loo sameeyey aad iyo aad ayay u fara badan yihiin. taasna waxay ku timid waxay tahay runtii dadaalka xukuumadda madaxweynaha oo ahmiyadda tahay in dowladdu ay tahay dowladdii shacabka, shacabkana loo dhowaado. mudan ra-iisul wasaare 8 Febraayo 2017 ayay ahayd markii bulshada Soomaaliyeed caasimadda ha noqoto gobolada iyo dhammaan qurbo-joogtaba ay kalsooni buuxda siiyeen madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo, taasoo caalamkuna siday u arkayeen dowladda iyo Soomaaliyaba bedeshay. maantana caalamka aan kaalin wanaagsan kaga jirno, go-aanada masiiriga ah madaxda qaadatana caalamku ay soo dhoweeyaan, tanoo horseed u noqotay in bulsho iyo dowlad wada shaqaynaysana uu noqon karo xalka keliya ee horumarka. waa aragnay madaxweynaha jamhuuriyadda muddadii 2 sana gobol walba uu tago iyo caasimaddaba sida mar walba looga soo dhoweeyo, loo dhiirigeliyo, isla markaana kalsooni buuxda loo siiyey. intaas waxaa dheer annaga maamulka gobolka, maamulkii shacabka waxaa naga go-an in madaxda vishinkoodii la hirgeliyo, sida uu ku hirgeli karana ay tahay gobol walba kaalintiisa qaato. caasimadda muqdisho iyo gobolka banaadirna waxaan diyaar unahay inaan kaalinteena ku aadan ka qaadano howlaha qaranka. waxaan qorsheynaynaa 2019 in golayaashii degaankana la hagaajiyo, dimuqraadiyiintii ay bilaabato, isla markaana shacabka Soomaaliyeed oo gobolka banaadir ay helaan matalaad rasmi ah, isla markaana ay ku doortaan hal cod iyo hal qof oo aan rabno gobolka banaadir inuu noqdo gobollada ugu horeeyo ee doorashooyinka qaranka ay ka dhici karaan. ka horna aan rabno doorashooyinka ilaa heer degmo inaan ka hirgelino.
intaas waxaa noo sii dheer qorshayaasha aan dejinayno oo ay ka mid yihiin barnaamijka horumarinta gobolka Banaadir Development Plan qorshihiisii haddana isagana meel fiican noo marayo dhawaana soo bandhigi doono. waxa kaloo noo qorshaysan inaan wadooyin badan oo interlock wadooyin xaafadeed aan dhisi doono sanadkan. waxa kaloo noo qorshaysan inaan shacabka iyo wacyigelintiisii aanan ka daalin oo mar walba aan shacabkeena ku dhex jirno. ujeedaduna ay tahay in shacabka loo adeego loo dhowaado. waa fariimihii madaxda qaranku ayna siiyeen, annagana taas baan ku soconnaa. sidaas daraaddeed mudane ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed, fadlan ku soo dhawow.